kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba oo dunida ka joogtaan waa anigoo Zahaboy halkan naga daawanaysan waa maqal YouTube ku suraada muuqaalkana maanta haddaba inta maqaalka ugu wada gelin daawada haddii ay markii horeysa aad channelka soo boqoto subscribe sar sidoo kale video like sar oo share gare si aad u hesho muuqaalada barta mar walba aan soo gelino aad xisaab leh waxay ku dhawaaqeen inay shaaciyeen inay soo bandhigaan gurkooda waa Raxma Xasan iyo sidoo kale Suheyb Yara waxay ugu dambeyntii soo bandhigeen inay soo shaaciyeen inay daha ka qaadeen inay mar dhow gurkooda u dhici doono haddaba Raxma Xasan iyo sidoo kale Suheyb Yara oo dalkani Kenya qaasatan caasimadiisa dalkani magaalada Nairobi ee ku sugan ay waxay soo shaaciyeen inay isguursan rabaan mar dhow Raxma Xasan iyo sidoo kale Suheyb Yara ayaa waxay la socdeen 2 sano ayay wada socdeen xiriirkooda jaceylkoodana wuxuu bilaabay 2020 ayuu socday ilaa hadda ayuu socdaa balse waxaa la filayaa ugu dambeyntii Raxma Xasan ayaa daha ka qaaday war farxad leh oo waxay tiri mar dhow bishan aan ku jirno January-da hadda dhexdeena ayaa aroos ka dhaxaya haddaba arooskani ayaa wuxuu ka dhici doonaa magaalada Nairobi waxaan ognahay Raxma Xasan inay ka soo jeedo magaalada Djibouti sidoo kale ay u dhalatay dalkaasi Jigjiga sidoo kale asagana Suheyb Yara uu ka soo jeedo magaalada Djibouti marka maadaama xagga ugu dhasheen sidoo kalena waa la isdhihi karaa arooskooda inuu ka dhaxayo kadibna ay aadayaan guurkooda iyo meeshaas ay ku degayaan Djibouti maadaama halkaasi ay ku wada dhasheen haddaba Raxma Xasan oo ayada sanadahanba fanka haysatay oo markaasi fanka oo ahaa gabar ayada u shidan tahay ayna ka soo tagtay Djibouti hadda ay joogto magaalada dalkani Kenya caasimadiisa Nairobi iyo sidoo kale jaceylkeeda Suheyb Yara oo halkanba ay joogan haddaba Raxma Xasan ayaa ayada waxay tahay qof oo bariyahanba maslaxa saaran oo maslaxa fanka ayada u shidan yahay haddaba Suheyb Yara asagana mar walba wuxuu yahay gacan qabataha oo jaceylkiisa mar walba qabto oo Raxma Xasan oo mar walba oo garab taagan haddaba saas ay tahay waxay jirtaa heesa ay marar badan isla soo qaadeen sidoo kale isla soo qaadeen haddaba fanaanadan Raxma Xasan ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxay ahayd qof fankada qarxa halka sidoo kalena Suheyb Yara asagana uu lahaa mar walba uu garabkeeda taagnaa Raxma Xasan haddaba markii laga soo tago dhanka fanka Raxma Xasan iyo sidoo kale Suheyb Yara waxaa ka dhaxay xiriir jecel balse hadda waxa ugu dambeyntii la shaaciyay xiriirkada jecel inuu isku bedeli doono reer meel degan oo aroos wada gala haddaba Raxma Xasan iyo sidoo kale Suheyb Yara waxaan ognahay inay soo qaadeen heesa lamaane ay marar badan ay soo qaadeen balse midaas ayaa hadda Raxma Xasan oo ku soo jeedo iyo sidoo kale fanaanka da'da yar oo sidoo kale Suheyb Yara oo ka soo jeedan dalkani Djibouti ayaa mar dhow arooskooda dhici doona haddaba daawade waxaan ku leeyahay haddii ay tahay markii horeysa aad channelka soo boqoto waxaa ka codsanaa inaad subscribe sartid sidoo kale video like garaysid sinise garaysid si aad u hesho muuqaalada barta mar walba aan soo gelino haddaba muuqaalka waxaa idin taabinaa anigoo Zahaboy inta ku kulmi doona muuqaalka xiga waxaan idin ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo